dhawaan ayay ahayd kadib markii maayarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane uu gabi ahaanba uu burburiyay isla markaana uu cagaf geliyay dhul uu ku tilmaamay in ay ahayd dhul danguuda hayeeshee eheladii dhulkaasi lahaa ayaa maanta mar ay warbaahinta kula hadlayeen magaalada Boorama waxa ay sheegeen in dhulkaasi la burburiyay ay iyagu lahaayeen isla markaana ay sharci darro ahayd oo ay dawladda hoose ay awood u adeegsatay isla markaana ay dhulkoogii burburisay dadkani ayaa waxa ay wateen faylal ama dokumentiyo ama sharciyo dawladda hoose laga soo saxeexay kuwaasi oo maamulkii hore ee degmada Boorama u soo saxeexay balse maamulka haatan talada haya ayaa iska indhatiray sharciyada iyo faylashaasi ay dadkaasi wataan taasina ay keentay in dhulkii dadkaasi ay lahaayeen gabi ahaanba la burburiyo dadka iyagu dhulkani lahaa oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa waxa ay xukuumadda ugu baaqday in ay arintani soo farageliso waxaana ay yiraahdeen dadkii laga dumiyay ee seeska lahay laga iibshay dadku inaga iibsay dadkii inaga dumeen walba faylkiisa xaqaato maxkamadda ka furto haday jirto dadka kala xalinayo hadaan la xalin kii dumiya u doonto dawlad jiro haday dawlad u dhaxaysan walba faylkiisa hantidiisa xaqaymeeyo maxkamadda hageeyo ha furto ku dacwoodo xaqiisa doonto 24 sanadood ma yuru joog barasta buu joogay dawladda hoose way dhisneed hadala oo darado la soo mariyay ciidan iyo military la qoodo waa wax inaga baxsanaan weyn ma taas waxa weey dhulka aan joogno guryaha dhulka laga dumiyay jagooyinka la dumiyay waxa weey umad bilaadan baa iskale dad baa iskale saddex jeer baa la sii kala iibsaday saddex jeer ayuu idku sii kala maraya dhulka qaarkii haddana iyadoo nin walba faylkii haysto oo sharcigii leedahay cagaf la soo kaxeeyay waa lagu duugay ummadii dhulka lahayd wax laga weydiiyay haba yaraatee ma jirto haddii danguud la doonayo dadkoo dhan baa u siman magaalada yaal iyo beeraha magaalada iyo koonayaasheeda u siman cid gaari uma suntana aqbalina mayno waxa weey ummad bil aadanka wixiisa sharci baa lagu kala socdaa iyo cadaalad xoog waxba lagu ma kala xalaashado yaaday wasaarka daaqiliga tahay waa in lagu qaadaa kiiskaas laakiin farsamo kale oo gaar oo reer ku socota waa afar beerood oo reer xamada waxa laga doonayaa in la burburiyo oo la qaato la doonayaa waa afarta beerood reer xamada kuwa hareeraha ka xigay kuma jiraan kuwa dadka kale kuma jiraan waa cid gaar oo dan loo leeyahay waxaan leenahay ha soo gaaro wasiirka daaqiligu weeyaan wax la aqbalaya ma waxa weeye barasaabkuna waa inuu si degdeg ah soo galaa waa inuu maarta haduu mas'uul halka yahay aanu maarin oran la hadlay ileen yoomana hadanu maqan yahay waa inuu si degdeg ah soo galaa nin walba seeskiisa iyo halkii wixiisa waa inuu celiyaa geesta kale waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay maayarka magaalada Boorama si aanu wax uga weydiino arrimahani waxa ka jira ayaa ku jawaabay isku soo wada duubo ilaa iyo haatan ma cadda halka ay arrimahani ay sarka dhigan doonaan waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Boorama